gudoomiyaha banka dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa qaabilay ayaan Maxamed Yuusuf Diiriye oo ahayd inan yar oo ay hore tacadi muuqaal duubis oo kula kacday gabadh ay u shaqayn jirtay waxaana muuqaalkaasi oo baraha bulshada si ballaaran ugu baahay ka soo jawaabay mas'uuliyiinta laamaha dawladda oo ay ugu horeyso wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland oo iyagu markiiba tallaabo ka qaaday gabadhii tacadiga kula kacday inantaasi yar gudoomiyaha banka dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland oo isagu kamid ahaa mas'uuliyiintii dareenka naxariisnimo galay kadib markii ay arkeen muuqaalka naxariis darrada ee baraha bulshada qabsaday ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay ayaan Maxamed si toos ah uga shaqaaleysiiyay banka dhexe waxaana maanta munaasabada ballaaran oo gudoomiyaha banka dhexe ku qaabilayay inanta yar oo ka qabsoontay xarunta banka dhexe ka soo qayb galay mas'uuliyiinta shaqaale weynaha banka dhexe iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Jamhuuriyadda Somaliland iyo aabihii dhalay inanta yar Maxamed Yuusuf Diiriye waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadashay agaasimaha waaxda shaqaalaha ee banka dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland Marwo Khadra Daawud iyo agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland Marwo Filsan Xuseen Khaliif madaxda sare banka Somaliland markii ay arkeen muuqaalkii lagu baahiyay baraha bulshada ee ku saabsanaa ayaan oo xidhan calanka Somaliland gacanta ku xidhan waxay sheegeen gudoomiyuhu markaasi sheegay inuu diyaar u yahay inuu ayaan ka hawlgeliyo banka Somaliland iyadoo lagu hawlgelinayo xirfadda hadba ay taqaano ayaan ka aragnay social media waxaan qaadnay tallaabo sidii aan ayaan nafteeda u badbaadin lahayn ee kiiskan u gali lahayn gabadha yar ee muwaadinada ee calanka Somaliland gacanteeda uu ku xidhan yahayna oo qarankeedu ugu heelin lahaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waa nagu guuleeyay maanta waxaynu u fadhinaa banka Jamhuuriyadda Somaliland oo ayaan shaqaaleysiiyay agaasimaha guud ee banka dhexe Axmed Xasan Carwo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Jamhuuriyadda Somaliland Cabdirashiid Ibrahim Sheekh Cabdiraxmaan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in maanta banka dhexe laga shaqo galiyo inanta yar marka qaarkood ilaahay wuxuu nagu yiri wax dib moodayso ayaa khayr ku ah waxaad khayr moodaysaana dib bay ku tahay dibtaasi way dareemaysaa inay dib tahay laakiin dibtii buu ilaahay khayr uga dhigay oo mustaax uga dhigay inay meel u dhaanta ay hesho waxa weey qofkii dibta geysanaysay ayaa iyadu intay duubtay dibtii ay geysanaysay ay umadiin hadana sustay qofti aqli leh ma sameeyay laakiin waxa weey iraadada ilaahay baa ka shifaayay iyadana inantana xaqeedii tusaayay in cid lama joogin hadii ay duubin ayaan sidoo bay dhibaatada ugu noolaan lahayd ayaan Yuusuf Diiriye oo runtii ahayd inaan tirsaneysay dhibaatooyin runtii ay ku dhaceen banka marka waxaan uga mahad celinayaa sida sharafta leh ee runtii aynanta markiiba ay uga jawaabeen arinteeda shaqana loo siiyay waxaan filayaa in runtii arintaas ay waxtarna u noqon doonto ayaan gudoomiyaha banka dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi oo halkaasi ka hadlay soona dhaweeyay kuna qaabilay xarunta banka dhexe ayaan Maxamed Yuusuf ayaan marwatan la hadlay waxa ugu tiri Hargeysa marka ugu horeysa waxa joogtay 3 bilood oo ay shaqeynaysay gabadha ay la joogtay waxbarashadeedu wali iskuul ma gelin waxay ugu weyn tahay 7 caruur ay ugu weyn tahay marka tacadiga lagu sameeyay bulshadu aragto ma baankuna ka falceliyay hore uma aanan garanayn laakiin sida uu sheegay agaasimaha guud calanka Jamhuuriyadda Somaliland gacanta ku xidhnayd iyo firfircoonidii ka muuqatay ayuun baan soo jeedatay dabeetana waxay noqotay inaanu ka jawaabno anagoo banka dhexe laga bilaabo maanta waa shaqaalaha banka dhexe waxbarashadeena anagu waa ballan qaadaynaa haddii wasaaradda waxbarashadu ay nagala wareegayso inaan hal wasahlan oo meel ka fiican ay geynayso laakiin wixii karaankayaga waxaan filayaa inaan ku filanahay dhankeeda waxaa halkaasi ka hadashay ayaan Maxamed Yuusuf Diiriye waxaana ka warantay sida wanaagsan ee loo qaabilay looguna soo dhaweeyay xarunta banka dhexe farxsan shaqadan siisaan heedoon mahad celinayaa sida u dhantii dhamaantiin maxaa Filsan arrimaha qoyska oo mahad celinayaa agaadiyad baan ku farxsan shaqadan siisaan
وليكم مناسحكم مناسوت وسين شقادة سائل دونتا الحمد لله رب العالمين إلهي المهد علينا